warbaahinta codka ciidamada xoogga dalka ayaa maanta baahisay in ciidamada militariga Soomaaliya oo kaashanaya ciidamada Jubbaland iyo kuwa Mareykanka ay 25 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab ay ku dileen weerar ka dhacay deegaanka Baarsanguuni oo 50 kiiloomitir u jira magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. taliyaha qaybta 43aad ee ciidamada xoogga dalka General Ismaaciil Saxardiid oo la hadlay idaacadda codka ciidamada qalabka sida waxa uu shaaciyay in lagu guuleystay howlgalkii ka socday nawaaxiga Baarsanguuni isagoona tilmaamay in howlgalkaasi iska kaashadeen ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale kuwa cadaana. ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo garabka helayo ciidamada Mareykanka ayaa ku guuleystay xoreynta deegaanka Baarsanguuni waxaana laga saaray Al-Shabaab hub iyo gaadiida ayaa sidoo kale looga qabsaday ayuu shaaciyay General Saxardiid oo la hadlay idaacadda codka ciidamada. taliya Saxardiid ayaa sidoo kale waxa uu xusay in ciidamada howlgalka ay ku qabteen 35 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab. deegaanada Baarsanguuni iyo Buula Gaduud oo dhammaantoodba ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa ay noqdeen goob dagaal. habeen ka hor ayaa lagu dilay askari Mareykan iyo sidoo kale laba Soomaali ah kadib markii Al-Shabaab ay ku qaadeen weerar qarax ku bilowday. wixii waqtiga ka dambeeyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa Mareykanka ayaa bilaabay weeraro cirka iyo dhulka kuwa oo lagu baacsanayo dagaalamayaasha Al-Shabaab.